sahanka nolosha. haddii uu adiga kaa qaban waayo telefoonka maxaad ugu malaynaysaa inuu aniga iga qaban doono sababtoo ah waad waashay telefoonkayga ii soo celi ma qabanayee may waan la tegayaa waxaan telefoonkaaga kuu soo celinaa markuu cali soo noqdo ma idiin oggolaan doonaa inaad labadiinna isla baxsataan maama cali telefoonkayga isii tawar uma haayo ciyaarta aawadid adiga ayaa ciyaarta bilaabay markii aad isku dayday inaad guursato nin aayadan isku qabiil ahayn marka gacantayda sii daa bliis telefoonkayga isii aniga haddii kale maxaad samayn miyaad ila dagaalaysaa hooyadii ninka aad sheegaysid inaad jeceshahay miyaad la dagaalaysaa ilama aha inaad sidaa yeelaysid see tahay mudane xasan fiican hibo ma soo geli karaa dadka daaqsan way jecel yihiin muusikadaada waxaa kaloo jira ololo aan ka shaqaynayno haddii aad igu caawin karto waa yahay waa caadi ololo caynkee ah weeye waxaan rabaa in dhallinyaradu ay iska diiwaangeliyaan tababarka ciidanka ilaalada xeebaha waana dadaallo ay wadaan dawladda iyo hay-ada caalamiya arrin xiisale ayay u muuqataa oo ma sabab gaara ayaa jirta oo ragga un loo bartilmaameedsanayo waa tababar ku saabsan ciidanka ilaalada xeebaha waana baran doonnaa badmaaxnimada iyo sida duunyaha loo sameeyo marka ay xumaadaan gargaarka degdega iyo kuwo kale oo badan arrimo aysan gabdhuhu xiisayn waaye dhammaantood adigoo mahadsan mudane xasan maxaynaan gabdhaha ugu oggolaanayn inay iyaguna go'aan ka gaaraan inay xiisaynayaan iyo in kale waxaan kugu imid inaad iga caawiso sidii ragga loogu soo dari lahaa ololahan fadlan mudane maad ka soo fikirtid in gabdhaha lagu dari karo tababarka inta aan kuu sheegay qaado qor hees naga caawin karta sida ragga loo shaqaalaysiin lahaa ma fahamtay mooge waa timid mahadsanid ma rabin inaan ku biiro dadka diiwaanka khaldan ugu jira guddoomiyaha marka waan kaa ajiibay wicitaankaagii waad ku mahadsan tahay sida aad ii sharaftay anigu waan isku dayayaa aad iyo aadna waan iskugu dayayaa in aan ku sharfo in kastoo ma aragtay adigu aad ku adkaysatay in aad iga dhigtid qof xun laakiin anigu qofka xun ma ihiyo qofka xun waa dirir waan ogahay inaad u xanaaqsan tahay dirir maadaama uu gurigaaga tegey laakiin fadlan carruurta dartood ninka xabsiga ka sidaa xaaladdu meel xun ayay maraysaa runtii dirir waa inuu halkaa ku uraa waa inuu xabsiga ku jiraa si uu uga dheeraado aniga iyo qoyskaygaba carruurtaasi waa carruurtayda adiga kuwaaga ma aha adiga ayaa dayacay aniga ayaa soo korsaday carruurta shilin ad adigu ku bixisa male dib jiriyo untuugga weli waa carruurtayda mooge fadlan sii daa dirir annagoo dhan aan nabad iyo xasillooni ku wada noolaan ninkan hal shuruud ah un baan ku sii dayn karaya shuruuddu maxay tahay way fududahay dirirow haddii aad doonaysid ama aad rabtid inaad xorriyaddaada dib u heshid waa inaad iska hilmaantaa carruurtaada hani iyo hanad marka kala dooro ayaan anigu ku leeyahay inaad carruurtaada heshid oo dee ma aragtay xorriyaddaadana aad ilowdid ood xabsigaa ku jirtid iyo inaad ma aragtay carruurtaa iska ilowdo oo ma aragtay aad bannaankaagaa joogto waah mooge wuxuu dirir kala doorsiiyey laba daran mid dooro kala soco xalqada xigta si aad u ogaatid waxa uu dirir dooran doono dhanka kale xasan wuxuu isku dayayaa inuu keeno rag dhallinyaro ah oo loo tababaro ciidanka ilaalada xeebaha si ay uga qayb qaataan mashruuca ay iska kaashanayaan dawladda iyo hay-ada caalami ah haddii mashruuc noocaas oo kale ah la keeno deegaanka ma ka qaybgeli lahayd tababarka haddii ay jawaabtu tahay haa waa maxay sababta haddii ay maya tahay waa maxay sababtu fadlan nala wadaag fikirkaaga sahanka